يعني عيار ما أهن وحا قعنت هذا كويس تأذو حرام بها هذا أساس وهيسته انقف انت كهذا فكات يحجيه يعني وحلا دول قاعدة كرمان وراني معانو والفنان باتهاي علنك الصومالية محمد مالك دم اللي جوز قرعة السلام عليكم صاحب يال ملك السواتوكتان سيكستو مقالك جديد سو قاريبا هل كتقدا ونيسان وشانلك شاعر شيكي ولكن شاعر شيكي كسو دوادا برنامج كادلين تبلشدو آيدي كوهي يقدا قبيل قرن بايدق يقدا واتا صاحب يال انت انا برنامجكي وقد قلين فضلا سبسكرايب سار شانلكيغا سيدو كالي ليلع مقال كان سو قارو صاحبا واتا نكن ادو جيدان وانا معان هلاع كودي جولاي iyo intii ay socdeen badbaaldega maalmihii xorriyadda dhibaato aad u weyn baa qabsatay ninka warileen qabyaalad oo socoto lagu leh dad maqashid qurbaha laga helaabo waxaan la yaabay dadka qurbaha jooga waxaaba isleedahay boqolkiiba konton mentality ama maskaxiyan waa xanuunsan yihiin marka loo eego sida ay hadda aan hilaac oo dhaqmeen oo kale ani ahaan muuqaalkan baraha bulshada sida weynka u qabsaday markii aan arkay aad baan u yaabay runtii muuqaalkana intaan la wadaagin waxaan rabaa in dad badan oo aaminsanaa in dalkii hooyo ay qabyaalad ka jirtay aysan qabyaalad ka jirin qabyaaladda iyo balaayada iyo kala qoqobnaanta oo socotaba waxaa noo keena dadka qurbaha ka yimaado qurbuhu weliba iskuma jiraan cariga iyo maraykanka iyo kanadiya meesha ku jira dadku waxa lagu leeyahay qabiil u kala degaanba la xawla walaa quwwata illa billah haddaba nimcaan hilaac oo aan show qabsanaynin baa wuxuu tegay meel xaflad ah oo calanka Soomaaliya dabcan kooda luuliyo loogu dabaaldegay haddaba goobtaasi maxaa ka dhacay anaa si fiican idinkugu sharxi doona laakiin marka hore nimcaan hilaac maxaa ku dhacay dabcan sida weynada xoqa maqaabisana bulshada loo sheego waajib Let's go. Let's go. waxa igu darneed nimcaan hilaac mid baa ka daba ordaya kaala soo noqo camal markaasuu iska filqaya weli natiga nijaasi yahay ugu dambeynna goobtiiba isagoo xanaaqsan buu ord iga degaya ilaahu balaayan dhibaataysa noo keen arrintani waxay ka dhacday Mareykanka cariga ay Mareykanka ka dhacday I think in waliba Ohio taan jeclaa meesha oo arrintani ka dhacday nimcaan hilaac waxa loo dhibaateeyay gabadha oo sawirkeeda ama magaceeda uu gacanta ku hayo dabcan sida xogta ku helay waa gabar yani dadkan meelaha laga soo doorto ma Allah ka goreyski wax xildhibaanada iyo adigu meelaha Mareykanka dadka doorashooyinka raadinayay ku jirtaa marka nimcaan wuxuu maag inuu yiraahdo gabadhan iyo hebel cod hala siiyo inta waxaan raacsanayaa gacanteeda bidixii midig waxa ku jira Ismaaciil iyo Muniira gacantiina rabaan codkiina gacantiina ku ciilbaxa mid baaba qabiil darsi wada xanaaqo xasina taam la qabiil mid feeroyn soo booy ja ninkii waa lagu boodo wuxuu ku sigtaba nimcaan hadii inta loogu simay oo yani aan gacan loo tagin ba alxamdulillah ilaado waraadini macaanow warfanaan baa tahay calanka Soomaaliya maxamed maalinka dambe in lagu goos garacada hadda waxay taagan tahay in kuwa ololeynaysi waxa in lagu laakiin dadkan sidoodaba Soomaalida ah runta marka ka hadlo waxay xaq u leeyihiin ninkii sabab qofkii wadaninimo u muujiya ama la dabaaldega ama si u sameeya Soomaali ma balahan ba asxaab ardayda u fiirso macalinka markuu soo galo way aamusayaan macallimiinta qaar markuu soo galo shib ilaahay uu buuqay waxa arkaysa macallin arday iska dhex taagan ee ardaydiina iska qeylnaa taa micnaheedu waxay tahay macallinkana wuxuu yahay masaakiin waxba uma arkaa waxba kama bedeli karo laakiin macallinka kulkulul ee
madaxa usha aga bilaabaya markii arkaan gebigood way aamusayaan faaza marka inta badan markii xafladaha iyo waxaan dadka isku imaanayaan kala qabaa'ilada iyo waxa iswato dhan war Soomaali waxa waa meel daran ay leeyihiin ninkan nimcaana xafladaha ma yaso ma dhaho ma reebel baa waxaan samaysanaya iyo yahay kan ma dhaho kii warko Soomaalnimo la wuxuu maaga ugu orolay isagana dhiiqol wax la gala hal ma laba ma marka arkay nimcaan oo meel badan sax aduu ninka uu ka duwan fanaaniinta kale silweyn ma yaqaano leelushi di ma yaqaano aroos kama boodboodo meelaha xafladaha ay calanka la kaadilay hore ka soo booday laakiin ugu dambeyn calanka ma ku dhibaataysay waran macaano war waxaagay wadanimadaadii waxaaga caloosha ku hayso hadii kale xaalad halis ah meelaha qaar kala kulmi doonta xaqiiqo hadda maanta live ayadoo lagu duubayo ba sawir gacantada ku jirta la qabtaa la jecel halka lagu dhaqan inkastoo talaabata ku fiicnaaday aan sameeyo aad calanka daa tuurnaa ziblada aad tuurtay microphone halka ku dareertay haddana dadka qaar talaabo waxay qaadi lahaayeen inay dhig iyo fal isku jiriyaan يعني عيار ما أهن وحق جعنت هذا كويس تقولوا حرام بها هذا أساس ويسطو انقف أنت كذا فكات شحجة يعني وحلا دول قاعدة كرمة وأنا سيدا مركز قناة أسكور تسيدا مسكي أدري إذا فرق ويسا يعني وهلس إنا جعن قادات كله مركز يعني لا حلا هاي حالة هلستا يوحنا دبعتها أنت سكوسي سعون وحن سيدا سكا دام سكا رح صومالي سيدا قفك أنت قبته حوك قصب isugu keenan maahane qof kale ma maamuli karto qof kale wax uma sheegi karto qof kale waxba kama dhici karto gibigood waa tabta hada inta taxankay Kenya ba waxa lagu xusay calanka maalinta 16 June ahayd ma dheereenba marka inta badan meeshi dhameed ay wixii ku dabaaldegi lahayd iska dhaato wadan islaamiyada joogan Soomaaliya waxa lagu leeyahay anaga qaldan inta macnaha dadku waxay leeyihiin wanaga qaldan ama Kenyaanka anaga qaldan waxaan oo diiday laakiin ana marka u fiirsaday meel dhan oo bartamaha magaalada ah oo baabuurtii dhamaad ay ku kala gooshayso raanabood ah bay ay goosteen kow yani meel banaan ama barxad ah hadii qofka isugu maadaan caadi waxa ku dabaaldig wada islaamiyada joogan waxay ku yihiin qaxooti ama waxay ku yihiin magangalyadoon ama waxay ku yihiin waxay ku joogaan nasiino ama daris ahaan bay u joogaan haddana wadankan iyaga maalinka dabaaldegooda xitaa sidan uma boodboodaan Soomaha macnaha buuq dhan bay nacib yihiinba buuqa dhanaysa ogolaan ba wadanku sida ay tahay way soo baxeen meel dhan oo halbowla oo raanabood ah oo baabuurta ka kala gooshaysa kuwa halka ka yimaado kuwa magaalada hoose ka yimaado ay kala socotay baabuur waxa jirta ambulance jiri karta qof xanuunsan isbitaal loo wadi kara raanaboodkii dhamaaya go'an kow mar horaan waxa soo bandhigo haddana waa iska daayay waxa isiri dadkan Soomaalida waxba toosha ku sii marka Soomaali marka oo fiirsato 100% ay qaldan qalad lagama weynayo 90 qalad dhex taagan haddii wax la yiraahdo waxa leeyahay anaga Soomaali maxaa anaga nuulaysta waxa ma ahan warsida baash u dhaam sida baash ma ahan sida baash ka daay marka Soomaali waxa leeyahay baasha ka joojiya wixiin waxa waaye waa ka daray waaye idinkii heshiila ummadaha ay dadka dhex joogtaan ee dhaqan xumo hawla tagnin ana intaas ku soo koobilaha aad ama daashad muuqaalka waa heshaa shakil isaayo muuqaal dambe xiisan